بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالمها بواحد تاجنا أما الوصنا حالة مرق بدن أو إسكسوهر شيء بدن أو كدلتي شراركي استبتشوجها أما تاني شرويني وصيف بهذا لكن تمرق أرنتو وكوريو إلى برهرة أيدي بيقول قنيا حالتي قوياقي سومالية كورن شرين ليش هذه سبتة حاجة دورة تابد مشكلة ما أنت تاجن مرن كمان أنت كتاجن كل مية حديثه يسكو هيان طيب كم إذا هو جانكه يوم مدحتويه ده يو وسير ده أيام مرر كقار كود أم مشكلة قانونية ورد حكومته أما دولته أما مدحوينها هي وسير السوق هي آخر سنة يعني وأيكو عمل فلا يعني حير ليلة هذا حير كعفرية طمنات وأيسو صار في جديد الديوان قلنتو ورد حسبه وحي آخر سنة يعني وأيكو عمل فلا يعني وأيكو هذاق يعني والدستور كي حزبه كل مية وصوب حي لبدي يكون يستدي ويسقو سيدي سيا كصوب حي شروينه هذه سدحات اللي قبتين منصور وحكوت على الدستور كحزبه كل مية وحقوق على سرية شروينه قرر حي جودي فلنات قولدي يلامه مركل الرعلو لو نمبر 14 أما كان ay gudida diiwaangelintu soo saartay oo aan la galanayn meel alyaala meel ay maanta ku eedan yihiin oo muranka iyagoo sabab u ah ay maanta saaxadda ka maqan yihiin oo ay hadlayeen waxa ku taala shirweynaha iyo gudida fulinta iyo golaha dhaxo isku meela musabix markii uu hadlayay wuxuu waa beentii qarniga maxamed muuse abees markii uu hadlayay wuxuu waa runtii qarniga labadaba way ka sheeysaayo waa mustaxiilaadka qarniga ayay ku jirtaa marka ay dadku cod bixinta ku jiraan ay codka bixinayaan baarlamaanka soo dooranayaan shirweyne ku jiraan waxay doortaan xeer dejinta madaxweynaha wasiir soo magacaaba waa fulintii waxa ogolaada golaha baarlamaanka NGO-yada markaas raado iyo civil society-ga waxay qabsadaan wax la yiraahdo GA ama General Assembly Board of Directors bay doortaan waa xeer dejintii dabeedna management committee iyo executive director ayaa jira waa fulintii sidaasay u dhacdaa dabadeedna maanta waxaanu arkaynaa iyadoo xeer number 14 uu leeyahay gudidii fulinta iyo golihii dhexe waxa wada dooranaya shirweynaha oo aanay suuragal ahayn shirweynuhu wuxuu doortaa golaha dhexena wuxuu ogolaadaa gudi fulineed mas'alada kale meesha taala waxa weeye ee dhibaatada ugu weyn haysa waxa weeye xubnihii golaha wasiiradu shalay iyagoo madaxweyne ku-xigeenka wata ayay soo fadhiisteen Mansoor waxay ka hadlayeen arrimahan xisbiga iyagoo ah gudida fulinta mar kale ay dadku soo hor fadhiisanayaan iyagoo ah xubnaha golaha wasiirada mar kale ay dadku soo hor fadhiisanayaan iyagoo ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ay soo fadhiisanayaan wala magacaabaya gudidii qabanqaabada 18 miiwa golaha wasiirada gudidii turxaan bixintu waa golaha wasiirada gudidii hogaaminta shirweynaha kulmiye waa golaha wasiirada macnaheedu waxa weeye waa isku wada raay oo meel bay ka wada qaadayaan haduu mid ka baydhana cawaaqibkiisu wuxuu noqonayaa ka maxamed cabdilaahi ama kuwii ka horeeyayba waxaanu u baahanahay oo sharciyada dalka taala ay tahay inaanu qofku saddexda gole laba ka wada tirsanaan karin nin baarlamaanka ku jira golaha wasiirada ma galo golaha guursidana ma galo haduu baarlamaanka ka baxo wasiir noqdo wuu risaan gareeyaa waa curfi iyo dhaqan iyo xeer wadankan u yaala macnaheedu waxa weeye in lagu daydo oo hoos loo daadego oo la yiraahdo dabeedna markaa ninku haduu golaha wasiirada ka tirsan yahay te gudidii fulinta ma noqonayo waxa iska noqonaya riwaayadii xunay iska noqonaysa hadana waa ay kan bay noqonaysaa ta kale meesha taala waxa weeye ama madaxweynaha noqoto ama cid kale ha noqoto dadka xilalka waaweyn ee wadanka haya xeerku wuxuu dhigayaa lacalaba ay dhacdo in xilka qaadistimaado 3 meelood marka loo qaybiyo in laba lagaga qaado xeerkaasi wuxuu dhigayaa in gudoomiyeyaasha xisbiyada lagaga qaadi karo xilka kala badh golaha dhexe marka waxaanu u baahanahay inaynu iswaafajino xeerarkeena oo 2008 soo baxay marka la sameeyo xeerka diiwaangelinta gudida diiwaangelinta xisbigu isaga u madax banaan hawlihiisa sidoo uu maamulanayo ama cid ha noqdo ama wadani ha noqdo ama kulmiye ha noqdo gudida diiwaangelintu waxay soo qaadato kaliya arrimaha shirweynaha
dabeedna halkanay gelisay dabeedna khalkhalkaas ayay abuurtay maantana meel aliyaana meel ay ku sugan yihiin waxaynu uga baahanay guddida diiwaangelintu inay nagu tiraahdo shirweynihii saddexaad ee kulmiye ansax buu ahaa ama muu ahayn waxaynu u baahanay inay nagu tiraahdo waxaan lagu murmayaa sidaasay qaanuun u yihiin laakiin tii iyagiina ma hayno hadalka waxaan kaga baxayaa golaha wasiiradu ha is ururiyo wuu ku farabatay dalka iyo dadka iyo meel walba hayse soo ururiyaan oo xil keliya ha qaadaan oo ra'yigooda ha dhiibtaan iyagoon cidna waxba u dhimayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka fadhiistay waxay dhahdeen qaanuunkii naga saxsan qodob-koordiin iyo qodobay soo adeegsadeen xisbigii maxaafadka kulmiyey hogaankii musabixiye maxamed kaahina ibnu waxay leeyihin naga saxsan waxaa lagu dhawaaqay hadda shirweyne shirkii golaha dhexe ayaa lagu dhawaaqay muddo koob iyo soddon kamay ku dhawaaqay midna kowda bisha joon ku dhawaaqay marka waxaasoo dhan laga waramo ee qodobadan la adeegsanaya xirfoodhin la eegayo dad badan bulshaweyn baa la warramaya dadkii way ku dhex wareereen markuu qodobkan hebel soo qaato ee qodobkana wasiiradii soo qaataan iyada adigu sharci ahaan leedahay qodobkay ku taaganyihin baa saxa horta anigu qof un baan ka ahay dadka ninka qaanuunka dejiyana ma yihi dadkuna kuma qasbana inay ra'yigayga qaataan xaq waxay u leeyihin inay dhegaystaan sida dad kaleba loo dhegaysto dabeedna ninba siday la noqoto meeshuu la marayo isagay jirtaa anigu waxaan aaminsanahay labadan xeer way iska soo horjeedaan oo midna waa kaa golaha dhexaa guddida fulinta ogolaata odhanaya midna waa ka odhanaya guddida fulinta iyo golaha dhexe iyo shirguddoon hoggaanka xisbigaba waxa dooranaya shirweynaha waa qalad guddida fulinta howl maalmeed bay qabataa maalin walba dhaca saacad walba dhaca waxa kormeero oo ku ilaaliya golaha dhexe xilkiisa waxa ku ilaaliya shirweynaha sidaasay u kala sarreeyaan taasi waxay ku taallata xisbiga ee kuma taallo kan murankaana inaynu u dhimanno aynu ku burburno ma aha waa wax laysaga iman karo oo laga wada hadli karo oo laysla meel dhigi karo waxaanay muhiimaddu tahay inaynu saxno qawaaniinta xukumaysa doorashooyinka iyo axsaabta oo aynaan 100 xeer oo kala kaan ah aynaanu yeelan axsaabtuna waa in lagu ixtiraamaa inay iyagu ka taliyaan siday u shirayaan iyo dhismahoodu siday noqonayaan qasabna waxa ku ah inay waafaqsanaato dastuurka qaranka iyo xeerarka dalka u yaalla ayaan darradu waxay tahay iyadoo sidaasi taallay ayaa xeerkani soo baxay guddi hoosaadka shuruucda ee golaha wakiilada ayuu maray way falanqeeyeen oo way ka doodeen baarlamaanka maanta taagan oo shirguddoonkiisii wata ayaa xeerkaa gacanta u taagay waxaynu eednay aynu dagaalaynaa waa labadaa waxay kala kaanka ah ee labada qole iska soo horjeeda uu midba xeer akhriyayo booba yuusuf ducaale waxaad eedayn u soo jeedisay golaha wasiirada waxaynu ogsoonnahay xukuumadda iminka talada haysa waxay ka timi xisbi marka hore mucaarad ahaa oo dalka qabsaday waa xisbiga kulmiye ee iminka talada dalka haya xukuumadda golaheeda wasiirada qaybo fara badan oo ka mid ahay waa mas-uuliyiintii xilalka kala duwan ka hayay xisbiga kulmiye amaba ku jira golihiisa dhexe iyo golihiisa fulinta haddii mas-uuliyiinta shalay toola fadhiisatay ee golaha wasiirada hayay shirka jaraa'id qabtay ay marka hore ka tirsaneen golaha fulinta xisbiga kulmiye maxaa u diidan iyagoo xilkoodii wasiirnimada haya in ay daneeyaan kana qayb qaataan xalinta iyo ka go'aan gaadhista hadba howlaha dhex yaala xisbi xaakimka kulmiye iyadoo wasiirkoodina yihiin maareynta khilaafaadka jira maaha mushkiladda jirtaa waxa weeye ninkan wasiirka golaha dhexe ka tirsan ee guddida fulinta ka tirsan ee golaha wasiirada ka tirsan ee guddida turxaan bixinta ka tirsan ee guddida hagidda shirweynaha ka tirsan ee guddida qabanqaabada ka tirsan ee guddida wax walba ka tirsan weeye mushkiladda taalla sharci u diidaya jiro sharcigu wuxuu odhanayaa inaanu qofku 3 golayaasha qaranka nin guurtidii ma noqon karo wasiir nin wasiiri guurtida ma geli karo nin baarlamaan ku jira wasiir ma noqon karo hadduu mid ka baxo haddii uu mid qabto waa inuu kuwa kale ka baxaa xeerkaasi macnaheedu waxa weeye inuu waddanku ku dhaqmo wax sidaa u eg haddii aanay qornayn waa halkii ugu sarraysay maadaama ay tahay waa in lagu daydaayo ay xeerarka waddanku sidaa u ekaadaan haddii kale dee waa lagu burburayaa taas waayo aragnimada aynu haysanaynu maanta u soo joognaan waxa weeye xisbi udub laydhaa ayaa dalkan ka jiri jiray oo kii ugu horreeyey ahaa wuxuu ku burburay 2 eefnimada iyo 3 eefnimada iyo 4 eefnimada iyo 1 eefnimada nimankaa wasiirada ah maalintii udub doorashada laga helay intii wasiirada ahayd baa intay soo yaacday ayaa waxay tidhi waxaan u sharaxanay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen siday isu leynayeen bay saaxadda ka baxeen kuwii baa maanta guddidii fulinta golihii dhexe ee kulmiye haddana ku jira waana ayaan darra inuu qofku mabdaa yeelan waayo dee halkii uu ku qoyey ku engejisan waaye maalinba ciddii soo baxda un haddaad iska raacdo
waa mabda' la'aan weeye anigu golaha wasiiradan ka tirsanaan jiray waan ka baxay anaa madaxweynaha ka codsaday inuu xilka iga qaado dee dadka qaar ka mida baa igu dhahday yaa reerku masruufa ilaahii joogay baa jira waa anigaa nool marka isku kalsooni baa la rabaa dee waa kii isaguna sheegay murankanuunbuu ka dhex dhacay ra'yi ka duwan qolada wasiirada ra'yi ka duwan buu yeeshay waanu yeelan karaa qofku xorna uu yahay waa in lagu ixtiraamaa waxa weeye marka codka la qaaday in la yidhahdo dee 48 way ogolaatay midna wuu diiday labana way ka aamusan simple waa sidaas laakiin tii ayaan darrada taalla waxa weeye inaanay cidina ra'yiga ka duwan aanay yeelan karin waanu ku burburaynaa dantuna waxay ku jirtaa inaynu fikir kala duwan aynu yeelanno ayay dantu ku jirtaa kuma jirta sidii quraanshada in la istaba yaaco